السلام عليكم تمام وسلامتي مشاهدي الصوماليين سبورتسكا waxaan gaar salaama baahda sportska aniga oo ka qaasan Usman Qaasim oo salaama marka hore waan soo laabtay waxaan maqlay bilyaha ay ma jiraan social media koriiso dhanka sportska inay baraaleen horta dadka soo qaban qaabiyeen in ay sameeyaan xul oo diyaariyaan eertooyda ay hidiyaan war fiican aadi wanaagsan waliba waxaan aad u mahadceliyaa بلاتيني عباس بلاتيني وانا كمات انت اوجود من مرة وجعليها سبورتس وحافي عن وحافي عن قف كلمة وسيدي وله مريسا marka waxa loo baahan yahay taas shaqo fiican wala shaqadaas waa laga horeeyaa hadii maanta meeshan jaranjaradan oo danu dhulka joogo dhah tobanaada kora macquul ma aha waa koobina horta koowaad soo kora koowaad waa maxay waa inaan ku horta maamul la dhisaa degmada baraha maamul sports ma laha sabab xul waxa loo soo xulka inta lay keen waa horta marka hore inaan soo xulaa horyaal la qabtaa eertooyda laga soo xulaa horyaalka maamul ay leedahay xulka naftiisa wuxuu u baahan yahay maamul guddi farsamo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay guddi technication u baahan yahay wuxuu u baahan yahay naftiisa gudoomiye loo xilsaaray xulkaas markuu horeys wax walba waxay leeyihiin step waxaan arkay ciyaartooyda qaar waa laga soo tagay baraa waxaa ka dhisan dhowr iyo toban kooxood waxaa loo baahan yahay marka dhowr iyo tobanka kooxood inaa ciyaaryaal kasta jaanisi ma la arkin qaarkood u yaqaanin laakiin waa inaa tartan loo qabtaa midfilka oo kale midfil fiican ajira koox kasta laba midfil saddex midfil marka waa horta maamul inaa la soo dhisaa maamulka horta muhiim waa maamul gudoomiye sports la yaqaano oo xiriir kubadda cagta Soomaaliya taqaano koonfur galbeed la yaqaano waxyaabaha qaar ceeb waay marka kaliya shabaab waa ma gaarna anaga garoon weyn ma laha laakiin garoon yar oo fiican ay samaystaan sportskooda si habsami u socdaan meel walba in laga ogiyo social media in xitaa ka fiirsatay dhalinyarta meeshaas jooga xaquuq leeyahay xaquuqda manina marka uu leeyahay gudoomiye fiican gudoomiye ma rabo nin dhalinyaro ah magac leh degmada buuxaan dad oo xitaa bulshada magac ku leh bulshada oo magac shaqaystaan degmada Bravo oo lishan kadib nin dhalinyaro ciyaalkan wadi karo mustaqbal yeeli karo aan rabaa maamulku waxa loo baahan yahay inay gudoomiye doortaan gudoomiye ku xigeen doortaan waxa dibshilin gudoomiye free wax walba sports waxa laga dhisaa jaranjarada koowaad maamul oo isqabo horta la soo dhiso kadib gudoomiyaasha kooxaha inaa naftikooda la xisaabtami karo inaa ciyaartooyda kooxaha la xisaabtami karo marka maamul la aqoonsan yahay koonfur galbeed aqoonsan tahay Soomaaliya la aqoonsan yahay la sameeyo ay kubadda cagta horumariyo kubadda cagta degmada Baraade halahan dhulka u gashay madaxa kaliya banaan madaxa hadoo dhulka galo way dhamaatay hadda inta madaxa dhulka galay hadda inta goorta waa isku ognahay anaga dhan inaan waxaa la rabaa maamulka la sameeyo ciyaartooydan tartan loo qabto nin walba xaqiisa la siiyo waa ognahay media anaga dhan waa isku ognahay hal qof laba qof waxa qarkooda hal ciyaariyo hata ugu jiro taas ma aha musuqmaasuq waay aniga waxaan ku hadlaa afka ciyaartooydaas waxaan u baahanaa ciyaartooyda xaqooda la difiri ina xaqooda labo chance waxa inay hadda asamaysan wax fiican waa laakiin meel khaldana ka bilaabtay dadkeenii maqlan way nagu yaabayaan sababtoo waxay nagu yaabayaan inay horyaalbu muddo lama dheelin ciyaartooyda inta ka keentay maqdaqso aniga qofna ma dhaliilaayo maanta qofna xumaan uma qabo qof gooyna ma ataagayo kaliya waxaa rabaa ina maamul fiican oo koonfur galbeed aqoonsan tahay xiriirka Soomaaliya laga aqoonsan yahay oo magac leh in la sameeyo ciyaartooydaas sportskaas oo horumara aniga u jirto aniga waa kana Bravo ka soo jeeda hadii maamul sportska oo toos sportska Bravo horumar xamad u baahan gobolkayga oo naqana markan adna hadda aniga waa ka soo ciyaarnaa soo laabana sidaas oo kale loo baahan in ay noqoto Bravo meel ku dayasho mudan oo loo imaado qofna ma dhaliilay xilna ma u baahan laakiin waxaa niga maqan sportska degmada Bravo marka uu horeyso maamulka madax uu taagan maamulka ka soo dhisa marka maamulka soo dhistaan wax walba oo intuusaya bilis waa iyo codsi waan iyo codsi qof ma dhaliilayo ciyaalkaasna xaquuqdooda si sax ah loo siiyo maamulka sportska degmada Bravo waa inay la aqoonsan yahay taas ku dadaalo